Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Daawadayaal kulanti wanaagsan meel kastoo joogtaan. Waxaan barnaamijkeena uga hadli doonaa Ethiopia iyo Soomaaliya oo heshiis hordhaca ku gaaray magaalada Ankara ee dalka Turkiga. Barnaamijkaasi aan daawadayaal ku soo qaadan doonaa ee markale caalamiga 24 ku soo dhaw. Taad nagu cusub tahay nagu soo biir fiidiyoogana laag iyo share nasaar. Aan ku bilownay sida uu shaaciyay wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga kan fidaan oo dhinacyo ay taagnaayeen wasiirada arrimaha dibadda Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa sheegay in labada wasiir kulankii ay yeesheen isafgarad ku soo dhamaaday labada dawladoodna isku fahmeen wasiiradoodu in labadaba ay ka go'naatay in lagu xalliyo miiska wada hadalka qilaafka labada dawladood ka dhaxeeya. Wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga kan fidaan ayaa sheegay in labada dawladood isku raaceen in si walaalnimo ay ku xalistaan qilaafkooda sidoo kale tan Turkiga labada dhinacba uu la shaqeyn wanaagsan u leeyahay. kulan kale oo labada dhinac isugu imaan doonaan loogana hadli doono arrimaha rasmiga ah ee qilaafka ku saabsan ayuu sheegay inuu dhici doono bisha September ee sanadan aan ku jirno 2024. qodobadii laga wada hadlay waxaa la sheegay in la shaacin doono waxyaabihii looga heshiiyay inkastoo aan si rasmi ah loo faahfaahin. hase ahaatee warka ugu muhiimsan wuxuu yahay in labada dhinacba iska afgarteen in si walaalnimo iyo darisnimo ay ku xaliso doonaan qilaafka u dhaxeeya. Soomaaliya ay muuqatay inay ka tanaasushay qodobkii ahayd Ethiopia oo ka tagin heshiis afgaradka Soomaaliya la gashay inay hor fariisanayso taasina waa dhacday oo hadda way hor fariistay. warka soo bixi doona lama ogin heshiiskaas Ethiopia ku shaacin doonto inay ka baxday in kale. hase ahaatee hadda si rasmi ah looma shaacin Ethiopia oo ka tanaasushay afgaradkii ay Soomaaliya la gashay. Today I am pleased to be here before you with my counterparts from Ethiopia and Somalia, my brothers Taye Haske Selassie and Ahmet Muallim Fıkhi. Turkey, with its long-standing relationships and extensive cooperation with both Ethiopia and Somalia, has assumed the role of facilitator. Our commitment to peace, diplomacy, and goodwill drives us to establish dialogue and find common ground where possible. Today, we find ourselves in a very privileged position. The strong confidence and the mandate both sides vested in President Erdogan and in Turkey strengthen our belief that we are on the right path. During our talks, both with my colleagues and among the delegations, we were able to elaborate on all of the discussion points. These deliberations have allowed both parties to express their sensitivities in detail and enabled all sides to get a better understanding. It is no secret that due to the complicated nature of the many dynamics at play, we will need further reflections on this issue. In light of what we heard today, we remain hopeful for the future. The ministers agreed to meet in Ankara to have a second round of discussions on the 2nd of September 2024. We have agreed on a joint statement which will be released after this briefing. I do believe that we made a good progress today. I thank my colleagues for having to come to Ankara, both of them. Our teams will continue work together in good faith and prepare for our next meeting in Ankara. Thank you very much. daawadayaal barnaamijkan wixii ka soo kordhaa barnaamijyadana dambe ayaan uga hadli doonaa haddana intaas ayaan ku soo koobaynaa.